ودني maxay kula tahay halka Soomaaliya afari nusafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa Kalamaane oo duceeyay allay leedahay war ma haysaane waxaan maqla xalay war weyn oo cajiiba warkaas madaxtooyada muu ka yimid haweenaada Maxamed kuntaana malaa'ika arro ma abi Axmed ay xasilay hayahe ayaantan corona la sheegayo ma madaxdii alla karantiilay war haddii madaxda la karantiilo dalka yaa xukumaya wareeda waa nugu degdegteene jabhadda la dagaalanta dawladda Colombia ma al-shabaab ay leeshiyeen ma sadaaci shay naqdeen ma ICG baa laga wacay yaa aroma corona ku dhacayne war waxba leedin ma sheegi kare jabhadda waxay sheegtay inta koroonuhu socdo inay dagaalka joojinayaan dawladdiina arrintaa way kula heshiiyeen ciidankii jabhadda iyo kii dawladduna waa wada joogaa hadda marka waxaan la yaabanahay shabaabna way iska sii wadaa dagaalka iyo qaraxyadii cid kastoo adduunka joogta Daacish iyo shabaab ma ka naxariis badanta war jabhadda shacabkooda ay u naxayaan waa naga aqli badan yihiin naga aamus war ma jabhaddaas way naga ilka qabowyiin war ma haysaana waxa la yiri ceebta liidan la iskuguma imaan karo alla ilaahay kuwaasna la ka rookeeyo qayladooranba ka hoyo weyne warnimayahu dawladda Kenya ciidamadii la dagaalanka argagixisada ayay ku amreen la dagaalanka coronavirus kadibna wixii dad dariiqa marayay jeegaday uga istaageen horta corona inuu argagixisay yahay adigu hadda anaad sheegaysaa anigu mug horaan arkay war waxa la yiri adduunka meelaha kiisaska corona laga helay kuwa ugu yaray Soomaaliya ka mid tahay war Soomaaliya kadeedkay hore u qabtay baa badnaayo ilaahay corona ugu dari maayo aryaadaha dad qalalaasa iyo qaylo lagu dilay corona xoo ka qaadaya horta muga waxaan dhihi lahay oo dad qarax qorta loo gelshaad qanda kaalula qaylihe dad qarax qorta loo gelshaad qanda kaalula qaylihe maahino war Cabdillah anu qanda lama qayline wax jiraan ku sheegayaa ay dhageyso Soomaaliya qalabkii corona lagu baaraay ma yaalo iyaduna way isdhex yaacaysaa liiro karantiil waa lagu kari waayay marka qofkii asoo qufacayo hindhisayo ka hor imaanaya wuxuuna ku leeyahay war corona iyo waxay sheegayaan been weeye gaaladuna ku dhacay muslimka kuma badhacba aryaadaha hindhisa alxamdulillah yay leedahay anta qufaan hadda socda ma aqaan war ma aysiin nin gaari biyaal wada oo sida uu sheegay sanboor qabay ayaa 3 jeer hindhisay show ma yiri aroosaas ma asiri wareelinka corona qabe dadkii caasiga saarnaa dhan hal mar ay ka daateen warnimayo waayaan baraha bulshada qofkii aragtay aan lagu qancin dhiibta soo farxalo ayaa lagu jawaabaa warnimayo corona inuu cudur dilay yahay oo adduunyada ka dilaacay kuna fiday waa cadda laakiin haddana kooro tiro badan oo siyaasi ah lagu xireeyay waa tuma koorta yeeraysa aryaadaha dad meel uu cadda meel ka madooba la yiri waxaan anigu dhihi lahay kaduud sheead u kibraayay corona ku tilmaamayad kaduud sheead u kibraayay corona ku tilmaamayaan haye warnimayo gudoomiyihii gobolka Hiiraan ee xilka laga qaaday Cali Carraale wuxuu yiri waari xilliga ma qaadi karo haye ewelna yaa u dhiibay war markii hore ma London laga soo magacaabay wararta gudoomiyihii gobolka Hiiraan loo magacaabay xilka laga ma qaadi karo muxuu u yiraa macmacaankeeda badan baan u malaynaya war Hiiraan cashuur aan la xisaabin baa ka jirta warka naga dhaxgelinin wuxuu yiri madaxweynaha waqtigiisu waa gabagabo in waqtigiisu dhow yahayna waxa ma qaadi karo ilka kana war gudoomiyaha gobolka Hiiraan madaxweynaha Hirshabelle uu rabaa yiri asaga iyo waaran biyo hoostooda iska arkeen aryaadaha gudoomiyaha Carraale iyo qaylada laga deeyaha korotaan la hayde ma yiri war adeer war ma haysaane jumhuuriyaddii Soomaaliland war weyn baa ka soo baxay wan ma ka weynay warkaas arro warna waxba ka garan maysidee wasiirkii arrimaha dabadda ee Soomaaliland wuxuu sheegay ictiraaf raadintii ayadoo meel fiican ay noo marayso oo nalaba aqoonsan rabo oo in yar noo saaran tahayba ayaa coronavirus caqabad weyn uu ku noqday marka inta coronavirus uu jiro ictiraaf raadinteedii dib baan u dhignay wadhiyo halka waxa iga cadaatay in coronavirus nin waliba ujeedadiisa uga macaashay marka sida ii muuqata islaan Taariiqo lumaana waxay oran doontaa haddaan arigaygii raadsan lahaana coronavirus baan ka baqaya
anuu arrintaa arrin ka xun baan ka baqayaa waxaana u malaynayaa wakhtiyada soo socda dawladda soomaaliya in war ka soo bixi doono ayna dhihi doonto muddo aan la cayimin koronafayras awgii doorashadii dib aan u dhignay allaahu akbar arwaxuu ku warramaya daya yaa ka yeelaa mugga warnimayo madaxweynaha Uganda doorasho 2 sano ka dhiman tahay ayuu yiri waan joojiyay koronafayras awgii markay ka diiday kuwan hayehe Muuse feentana ma barkaasoo u baxay tuma wallahi inaan laga yeelin warnimayo waxaan dhihi lahaa madaxweyne kuma dooranine kuwii ku soo doortay oo doorashada raggii rabay niyahow adiga ka doortay ee doorka ka dhigay xil waa la isku doortaaye daadiinta qaranka oo dhan iyo dawladnimadeenna dadka inaad walaalayso oo dib u heshiisiiso iyo isku duubnideenna ahayd wixii lagu doortay ee dawlad goboleedyadii dhisnaa soo wadigaa dumiyey aroodamada isaaq maanta ma u jeediya warkayga dhagaysta bay dhabaan xanfaraasha idinkaga haayaa guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeedaa loo tartamaa waana la sii yaqaanaa midkuu yahay waana cali fiqi garaynaa la yidhi xantaa sidaas u hadlayso marba hadduu garan yahay waa isaga guddoonshu war waxaa la yidhi dalkayaga waxaa daw ka rida dawladnimadiisa dan siyaasi yeeshiya qabiil diradirayntiis warnimayow ninbaa hadda koox xanuunsaday oo isbitaal tegey markii la baaray kadib baa dhakhtarkii wuxuu ku yidhi cashada iska dhaaf markaasuu wuxuu ku yidhi reerkii cashada waa laga mamnuucaye qadadii wixii ka haray isoo kululayaan iska cunee war haddaan ninkaa qiyaasa xanuunka hayey oo positive ahaayo waa xanuunka baruurtu keento warbeelihii ku diriraya nawaaxiga Kismaayo dagaalkooda wili waa socdaa la yiri xalna wili looma helin marka dawladda iyo maamulka Jubbaland maxay dadkaas dhameynaya u fiirsanayaan waryaada qaylo baad ku jirtaan ka faraxasha corona war dadka marka ay soo imaanayaan gafuurka ay xirtaan maxay ku dhaxay idinka war adeer anagu hawo fireeshan haysanaa horta xaad la qaylo dhaamisan afkaanya si xamar loogu xiraa ma waanaan xorahay war xanuun xor laga madno naga taga xanuun iyo corona ba alliidin ma tusee